xusbiga 4% helay xusbinimadiisa inuu lumiyo weeye uu ka baxay meesha inuu xusbi si ahaada ma waa political brokering weeye xildhibaan cabdiraxmaan warsame caalin oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa eedeymo ballaaran u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga oo injineer Faysal Cali Waraabe hore isagoo eedeymo ugu soo jeediyay golayaasha wakiilada iyo guurtida isla markaana madaxweyne Biixi ugu baaqay inuu kala diro golo sharci halka jooga annagu ma doorashadaan waa lagu joojino diidno noqon yaa la qaban golo miyuu diiday doorashada saddexda xusbi baa ku fashilmayna doorashadii qabtaan iyo commission-kooda eedoodiina waxay doonayeen inay golaha saaraan adal caqli gal ma noqonayso in Cali Waraabe 24 sanadood buu soo taagan yahay oo aanu maalin aanu ka banayno kursigiisa oo intaasoo dagaal uu ku galay oo ahayd inuu 2 sanadood markuu 4 sanadood markuu ayuu iska tagay meesha 2 xilli markuu ayuu iska tagay meesha haddana wuxuu leeyahay golihii wuu muddo dhaafay mar labaad buu ku fashilmay inuu qabto doorashada oo kuwa ku fashilmay doorashadu ka mid yahay isaguna wuxuu ku fashilmay inuu xusbigiisa hogaamintiisa wareejiyo wuxuu soo taagan yahay 4 dhikay buu soo taagan yahay 4 xilli buu soo taagan yahay haddana wuxuu doonayaa inuu cid kala saaro goluhu wuu cadeeyay doorashadii qabsada hal la qabto boqolaa diiday gudida arrimaha guduhu imika xeerka wata gacanta ku haysa waar qabyadooda kala dhamasay xeerka iyo ku marmarsoonine qabyadiina kala qabsado doorashadiina qabsada haddaad ku fashilantaan golahan hasaarin eeda waa ceeb weeyaan ilaa dadku dhagu leeyahay dadku waxbay garanayaan markuu Cali Waraabe kursigiisa banayn kari waayay oo intaasoo dagaal ku galay oo cirro kula dagaalamay oo kula dagaalamay Xasan Ciise kula dagaalamay oo cid walba kula dagaalamay markuu soo taagnaa uu yiraahdo golihii baa ayaa muddo dhaafa miyaanu isagu inuu muddo dhaaf yahay miyaanu xushoonay waxa way xeer waa inuu ka soo saaro golo xildhibaan caalin dhanka kale wuxuu xukuumadda Somaliland ugu baaqay inay la jaan qaado isbeddelka siyaasadeed ee ka socda dalka Itoobiya geeska Afrika waxaan qabaa inay waxyaabaha ka dhacay Itoobiya waa double edged knife waa midi laba gees leh dhibaatana way noqon kartaa wanaagna way noqon kartaa anigu waxaan qabaa inay fursad inoo tahay waxa burburay xuluf siyaasadeed oo aynaan waxba ku lahayn oo markuu samaysmay aynaan qaabkii la doonayay looga faa'iideysan aan looga faa'iideysan waxaan qabaa xulufka dhacayna waxa samaysmay xulufyo siyaasadeed oo cusub oo geeska Afrika ka hana qaada waxaan qabaa haddii aynu ka faa'iideysano loo jaan qaado inay faa'iido badan lagu jirto waxaan oran lahaa dawladda ha lagula taliyo oo xukuumadda ha lagula taliyo inay ka faa'iideysto yaynaan ku soo koobin Itoobiya way burburaysaa ma burburayso Itoobiya it will never happen laakiin xuluf siyaasadeed baa burburay oo isbedelaya qaabab siyaasadeed cusub baa samaysmaya alliance cusub Itoobiya ka samaysmaya waa inaynu ka faa'iideysano